السلام عليكم ورحمة الله وبركاته soo dhawaada akhyaarta dhammaantiin meel walba aad joogtaan caalamka waxaan rabaa inaan idinla wadaago barnaamij cusub oo aan rabo runtii in muddo ah niyaddayda ku jiray laakiin aanan bilaabin saa la socotaan waxaa jira Soomaali badan oo buugaag noocyo kala duwan qorayaal badan oo Soomaaliyeed ayaa jira inta badanna waxaa laga yaabaa in aan akhrinta buugta ku qoran luqadda Ingiriiska ama Carabiga ama buugaagta kale in aan ku badannahay laakiin waxaan xaqiiqo ah inay jiraan dad badan oo dadaal sameeyey wiilal iyo gabdhaba leh oo buugaag maaragtay wax ku ool ah qoray buugaagtan isugu jira caafimaadka maaragtay qofka siduu wax u qabsan karo ama kuwa dhiiri gelinaya buugaag taariikh ah buugaag ka sheekeynaya mataqaanaa tiknoolajiyadda buugaago siyaasadda kuwa ka sheekeynaya iyo kuwa kale oo aad u badan marka waxaan jeclaystay marka insha Allah barnaamijkan inaan ku bilaabo haddii la yiraahdo buugaagta ay qoreen dadka Soomaalida ah ama qorayaasha Soomaaliyeed dunida daafaheeda ku nool ay qoreen marka shuruudaha aan buugtan rabo inaan u fiiriyo waxay tahay kow buugga waa inuu qoray qof Soomaaliya labo waa inuu buug wax laga faa'iideeyay yahay sida aniga ila tahay fikirkayga saddex buuggaas wuxuu ku qornaan karaa luqadda Ingiriiska iyo Soomaaliga haddii Ilaahay yiraahdo oo ah labada luqadood oo aan buugaagta ku akhriyo ama ku akhristo waa tahay waxaan idinka codsanayaa in aad ila wadaagtaan haddii ay jiraan qoraa Soomaaliyeed as leedahay buuggiisa waa heli karaa isagoo maaragtay e-book ah ama isagoo hard copy ah haddii la heli karo waan iibsanayaa insha Allah waan akhrinayaa markaan akhriyo kadib ayaan ka soo warbixinayaa haddii la yiraahdo hadda so far saddex buug ayaan rabaa inaan ku bilaabo saddexdan buug laba waan dhameeyey midna meel dhexe ayuu ii marayaa insha Allah kadibna qaybta koowaad ama part 1 waxaan ka dhigi doonaa 10 buug oo ay qoreen dad Soomaaliya buugtan waxaan sheegi doonaa qoraaga iyo sida qaabka loo heli karo haddii Ilaahay yiraahdo barnaamijkaana waxaa maaragtay maalgeliyey shirkadda esomabooks.com oo ah shirkad buugaagta Soomaaliga u istaagtay in ay maaragtay meeleeyaan waa tahay saddexda buuga iga filan doontaan waxa weeyaan kow buugga ugu horeeya waxaa qoray Dr. Jaamac Sahal ku nool dalka Soomaaliya buugga magaciisa waxaa la yiraahdaa xalka gaaska sonkorta iyo dhiigkarka waa buug runtii qiimo badan wax badan aan ka faa'iiday marka waxaan insha Allah sameyn doonaa video u gaar ah oo ka sheekeynaya buuggan iyo waxa uu ku saabsan yahay iyo sida aad ku heli karto buuggan xog buuxda ayuu kaa siinayaa xal saa ugu heli lahayd xanuunadan ku saabsan gaaska sokorta iyo dhiigkarka af Soomaali ayuu ku qoran yahay buuggan haddii la yiraahdo buuggii ugu horeeya noqon doonaa waxaa iigu xiga oo qoraa Soomaaliyeed uu qoray waxaa weeye Ustaad Ibraahim aw Xasan Ismaaciil buuggan waxaa la yiraahdaa magaciisa dhibaatada dhulkeena qaad iyo qabyaalad يعني موضوع title-ka kaliya ayaa ka fahmi kartaa buuggan waxa uu xambaarsan yahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay dhibaatada dhulkeena qaad iyo qabyaalad waxaa qoray Ustaad Ibraahim aw Xasan Ismaaciil waa beri buugga saddexaad isagana wuxuu ii noqon doonaa buugga uu qoray qoraa Soomaaliyeed isagana ku nool dalkan waxaa la yiraahdaa buugga Prison of a Dust
waxaa qoray qoraa cali deeq cusmaan ayaa qoray buug ka sheekeynaya taariikhda qoraaga iyo noloshiisii oo maaragtay laga soo bilaabo qixi ka hor ilaa iyo xeryaha qaxootiga ilaa ay maaragtay noloshiisa maanta iyo halka uu ku sugan yahay. saddexdaa buug ayaan ku bilaabi doonaa insha allah. waxaan kaloo iyadana aan niyadda ku hayaa inaan soo iibsado oan akhriyo buugga ay qortay congress woman ilhaan cumar oo soo baxay, iyo buugga afraad buu ii noqon doonaa saan rajeynayo insha allah haddayna wax kale ay kasoo horumarin. kadibna qaybta koowaad waxaan ka dhigi doonaa 10 buug oo ay qoreen 10 qoraa oo Soomaaliyeed haddii ilaah yiraahdo. marka adigana igala soo qayb gal barnaamijkan, sii faafi, sii share garay. waxaa kaloo samaysaa haddii uu jiro buug adiga ku anfacay oo qof Soomaaliya qoray, ila soo wadaag buugga magaciisa ama commentiga igu reeb ama igu soo dir Facebookga insha allah. haddii aan u arko buug aan wax ka faa'iidayo, bulshadana ay ka faa'iideyso, waan akhrinayaa, waan dhameynayaa, kadibna xogtiisa ayaan idin soo wadaagaya insha allah oo kooban. waa tahay sidaas ayaan isku ognahay dhammaanteen. waxa aan la soconnaaba waxaa weeye waa 3daa buug oo 3 video oo kala gogooniya ku saabsan, iyo waxa aan ka bartay 3daa buug haddii ilaah yiraahdo. ogow inta aad wax akhrinayso waxna qorayso waad maskaxdaada way kobcaysaa, horey waa u socotaa, way kobcaysaa. wax badan oo aad ogeenna waad ogaanaysaa maalin walbo. khayr baan idin rajaynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.